Bismillah, assalaamu calaykum. Maanta waxaan suubsanay bursaliid saa u jeediin oo noogu soo baxay. Haddii aad jeceshahay waxyaabaha aan ka suubinay inaa ogaatid, videoga nala daawo. Meeshaan waxaa noogu jiro bur waa alaabta ka suubsan lahayn bursaliidka. Marka alaabteena maanta waa tanaa, waxay nooga kooban tahay bur aan soo qiyaastay iyo cusbo, caano boro iyo biyo qandac sokor, leebito iyo ukun. Intaas isku darsaneynaa. Waa bur, waa ukun, waa sokor, leebito, caano boro qaada iyo cusbo iyo koob biyo qandac waxaan u suubsaneynaa sida aan usugu dardarsano. Hadda u suubsaneynaa idinla wadaagaya. Waxaan ku darsanayaa hadeertaan sokortii. Qof walba sokorta sidoo qiyaasta uu jecel yahay waaye. Meeshaas waxaa iigu jira qaata leebito aan soo qiyaastay. Inta waxaa iigu jira aan hadda ku darsaday waa hal xabo ukun waa isku walaaqanaya, isdhex gelgelinaya. Marka bur jilcan oo macaan badan oo kaaga soo baxaya oo maasha Allah oo kaale iska arag marka axbaabi insha Allah la socod wanaagsan. Waan isdhex gelinaynaa hadeertaan abaar kadib markaan qaadada isku gelgeliyo. Qaadada iska dhigi doona hadduu alla idmo. Axbaabi hadda qaadada iska dhigaya, gacantaa la galaya. Gacantaan ku qasanaya aad iyo aad gacanta ugu qasanaya si fiican gacanta isugu dhex gelinaya. Marka burkaan bur cajiib oo maasha Allah oo taste leh oo macaan badan ka heli doontiin waaye. Soo tijaabiye hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka gacanta saasa ugu dhex walaaqanayna. Aada uu garaacayna axbaabi burba marba cajiin haddii la qasaayo ama bur ha noqdo ama wuxuu rabo sambuus ama ceesh ama jabaati. Bur walbo burkoo yacni ka qastaan badan yahay ama ka garaacis badan yahay oo ka jircan yahay oo ka macaan badan yahay oo ka softisan yahay. Marka aada u garaacanayna waa garaacanayna. Si fiican u sii garaacanayna hadduu alla idmo. Saasna inuu u adkaada la rabaa hadda biyo dambe ma ku dareyno. Saasa u soo garaacanayna hadduu alla idmo. Biyo dambana ma u celinayno. Axbaabi hadda diyaar u yahay sida aan rabay waa dhiganayaa. Adi muddo ilaa iyo nooga soo qamiiro saacad fulaan ma idin dhihi kari. Laakiin ilaa iyo nooga soo qamiiro saarabna oo noo noqdo. Waa kana hadda uu ii qamiiray sidaa rabo ii noqday. Aaryadaasaan ka soo baxsanaya hadduu alla idmo. Aaryadaasaan ka bixinaya. Saliidina dabka ii saaran tahay. Marka aaryadii hadeertaan ka baxshay axbaabi. Waa dubanaynaa. Saliida way noo kulaatay. Marka saasa u kala bixinaysaa. Yacni markaad dubaysid labada gacan ama hal gacantida sida aad markaas rabtid ku kala bixinaysaa. Waa gelinaysaa. Saas waxaa la rabaa inuu khafiif noqdo. Insha Allah saasa ku soo dhammaysanayna hadduu alla idmo. Dabkan xoogaa inuu ku gaabsay saliid inay aad ka karkarto ma la rabo. Laano hadda aad ka karkarto burka. Yacni waxaa wuuna ka gubanaya dhaxdan ceeriin oo ka ahaanaya.
marka waa inuu dabka xoogaan xus ku ahaada, saliidana waa inay aad u karkarin. marka kalarka qof walba kalarkuu jecel yahay ka dhiganaya, adig kugu xirantahay kalarka markaas aad jeceshahay. goldhiga khafiifka gaduud saaid sida markaas aad adiga jeceshahay aa xiiseynaysid aa ka dhiganaysaa. kalarkaas goldhiga aa u jeediina aniga ka dhigtay, laakiin qof walba kalarkiisa sidii ku xiran tahay. xabiibaati, haddii aad nagu cusub tahay meesha gaduudan taabo si aa u noqono saaxiibo isku xiran fiidiyoyadeena aa mar walba aa u aragtid. hadda waa noo diyaar kalarkaas u yahay uga babaxsanaya. then qaybtii labaadaan ku shubanaya hadduu alla idmo. qaybtii labaad aa ku shubanaya hadda xabiibaati. codkayga haddii uu gaaban yahay ka raali ahaada. soonka ay ahaa mis dhahdeen marka maasha allah axbaabii saasa kusoo dhamaysaneynaa burkeena. already hadda wuu noo dhammaaday sida oo noogu soo baxay inala arka. sidaas quruxda badan aa u jeediino axbaabii noogu soo baxay burkeena. marka maasha allah waaye, wax saliid ah ma lahan. kaala iska arag yummy waaye.